بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أرضي وسلامتين ومعهد العتيق سو دواada waxaanu qaadanayna maanta darsigeeni labaad ee aanu sugeynay waa anaga fasaxa galnay oo ciidi ayna soo dhamaatay oo fasaxina ayna soo dhamaaday shalayna waa aniga idinka mashquulay oo idinka cudur daatay maanta waxaanu qaadanaynaa marka darsigeeni labaad beritoole insha Allah laba darsi baanu qaadanaynaa darsigeeni labaad baanu qaadanaynaa oo aan kaga hadlaynay inaanu soo socday asmaa'ul ishaara magacyada wax lagu tilmaamo waxaan ka dooranay markaas magacyada wax lagu tilmaamo kuwooda dhowdhow asmaa'ul ishaara lil qariib magacyada wax lagu tilmaamo ee dhowdhow waxa inoo dhow ee marka ama aan taaban karno ama inoo muuqdo aan dhihi karno waa kaas farta aan ku fiiqi karno markaas hagaag oo haddaan istaagna xataa aan soo qaban karno waxba aysan naga qaadanay inaan soo qabanno haye waxaan ka marina marka hada lab baan ku hormarnay oo dhadigii dib baan u dhignay hada baan ku hormarnay sooma hadana maxaa looga hadlayay waa magac lagu tilmaamo wax ku dhow oo lab ah hada maxay tahay waa magac lagu tilmaamo wax ku dhow oo lab ah waa ka hada wa amthilatuha ayaanu galina hada iyo tusaalayaasheedi hada inaa'un kani waa weel hada inaa'un kani waa weel maxaa la yiraahdaa wax kasta oo qofka bila aadamka uu wax ku xafito ama marka waxaasi ha ka sameysnaado caag ama bir ha ka sameysnaado ama alwaax ha ka sameysnaado wuxuu ka sameysnaadaba shay kasto qofka bila aadamka uu wax ku xafito ayaa waxa la yiraahdaa weel siiba weel waxa la yiraahdaa waxyaabaha dareeraha ama waxa adag lagu shubto cuntadii oo kale ayaa laga hadlayaa waxa la leeyahay weel ayada la yiraahdaa weel ayada la yiraahdaa qalabka laakiin baabuureyda ay wax ku xafitaan iyo ama dadku kale ay wax ku xafidaan cunto aan ahayn weel ma noqonayo marka weel waa wixii bila aadamku ay cunto ku gurtaan ama cunto ay ku shubtaan ama cunto ay ku xafitaan hada inaa'un kani waa weel ayaad leedahay hagaag hada izaarun kani waa hoosgunti ama macawis hada izaarun kani waa hoosgunti ama macawis ayaad leedahay oo waayo haddii aan go' soo qaato oo aan xirto waa izaar haddaan macawis soo xirtana waa izaar oo maxay tahay izaarun macnaheedu saxda waa hoosgunti waa qofku inuu hoosta ka gunto waa hoosta inuu mara ka xirto guntinna waxaa laga wadaa shayga la xiro ama la laabo ayaa guntin la yiraahdaa waa fahamteen baan u malaynaya hagaag hada izaarun kani waa hoosgunti ama macawis Aisha radiyallahu anha ummuna Aisha waa ayaday tiri marka anigu dhiiga qabo nabigu wuxuu dhihi jiray wuxuu amri jiray bil itizari inaan hoos gunto fa ataziru kabacdi baan hoos guntan jiray oo dhiig baan qaba Soomaa qofkii haweeneyda markii dhiig qabto in looga yimaado qaybta hoose ma banaana inta kale laakiin inuu qofkii marka istimtaac iyo raaxo ugu yimaado way banaan tahay marka itizar buu faraya wuxuu leeyahay hoos gunto waad fahamteen ba umaleeyna marka izaarun waa wax kasta oo ninkii ama dumarkii uu marka xirto waxa la leeyahay hoos gunti haddii markaas macawis wixii ay tahay waxaad leedahay tani waa macawis ee hoosgunti ma dhihays hagaag hada iscaafun kani waa ambalaas waa baabuurta gaarka u ah dhaawaca in lagu qaado ambalaas maxaa la yiraahdaa waa baabuurta dhaawaca lagu qaado meelaha qaarna meydka ayaa lagu qaadaa qubuuraha lagu geeyaa waa baabuur degdeg ah loogu talagalay dadku markay wax soo gaaraan in inta si degdeg loogu qaado isbitaalka la geeyo qaarkood waxa ku sawiran mu'atab maxaan ka wadaa waa calaamada saliibka ama krishtanka ee mu'atab afka Soomaaliga la yiraahdo mu'atab baa ku sawiran qaarna hilaal baa ku sawiran hilaalku waxaan ka wadaa waa bil qaarna bil baa ku sawiran al-hilaalul ahmar qaarkood baa la yiraahdaa waad fahmaysiin baa umaleynaya marka ta kalena waxa la yiraahdaa as-saliibul ahmar mu'atabka cas haye tan kalena maxay tahay al-hilaalul ahmar oo laga wado bisha cas waad fahamteen baa umaleynaya hagaag hada iscaafun kani waa ambalaas hada itaaru sayyaratin kani waa shaag ama taayir hada itaaru sayyaratin kani waa shaag ama taayir shaag iyo taayirka waa la yaqaan waa laga baabuurtu ay ku socdaan ama diyaaradu ay ku socoto ama gaari dameerku uu ku socdo ama gaari gacanku uu ku socdo ama baaskiilku uu ku socdo ama mootadu ay ku socoto kuwaas baa waxa la yiraahdaa taayir ama shaag itaaru sayyara ba afka carabigana lagu yiraahdaa hada balaatun kani waa mutuleel waa ujeeda mutuleel ayaa la yiraahdaa mutuleel ku waa dhagax
laga sameeyo dhagax iyo xaba yaan ku dhihin waa dhoobo la kariyay oo la hagaajiyay oo dab soo martay deedna laga dhigay malsaa mid sabiibax ah guryaha ayaana lagu dhajiyaa iyadoo afar geesa hoteelada lagu dhajiyaa isbitaalada lagu dhajiyaa mutuleel dhulka waxa weeye bahal la geliyo weeye guryaha fiilooyinka ay kale uu ku jiraa dabcan waa la garanayaa baan u maleeynaa cidii aan mutuleel aqoon insha Allah ardayda u faa'iideyn doonto mutuleel waa la gartay hada baqlun kan waa baqal hada baqlun kan waa baqal baqashu maxay tahay baqashu waa neef xoolaha kamid ah xoolaha markaan ku leeyahay waa gamaanka waxa loo yaqaan gamaanku muxuu yahay waxyaabaha la rarto ayaa gamaan la yiraahdaa sida faraskii dameerkii iyo baqashi ayaa gamaan loo yaqaan gamaanku marka faras waanu garanaa faras waa la yaqaan dameerna waa la yaqaan baasha marka baqashu maxay tahay waa bahal dameerkana ka xoog badan oo ka weyn faraskiina ka yaro wali aana faraskiina gaarin dadku waxay yiraahdaan waxa iska dhalay dameer iyo faras Allahu a'lam anu ma aqaan dameer iyo faras baa iska dhalay yiraahdaan sidoo kale waxay yiraahdaan waa ma dhaleys oo ma badashabo ma taranto ma he taranto aadna uma badna Soomaaliya dhif baa looga arkaa faras baad moodaysaa markaad aragtid baqal baa yiraahdaa marka quraankana way ku jirtaayo ilaahay markuu bilaadanka uu nicmo sheeganay wal hamira wal bighala bighalku waa jamcu baqlin wal bighala litarkabuha waa kaas marka baqlun waa baqal هذا بقال كان ودكان أما دبكايو هذا بقال كان ودكان أما دبكايو دكان دبكايو ولا يقان وملا قفك وحكسو قط هدو حنجو باهي هدو سكر باهي هدو بريس باهي هاي هدو كرن باهي هاي بسكوت هدو باهدو ننعدو وحياله يركايو لو باهدو دن غريها لما ودا يالان الدكان با لغا دونتا أما دبكايو هاغاك هذا بطريق كان وبطريق هذا بطريق كان وبطريق أريك لو صومالي وانواي بطريق بالي هذا محويها بطريقه وشمبر شمبرها كمده بهذا شمبرها بهل كان لغو تريا لكن مبوبو بالال يربو ليهي شمبرها وكوين يهيبه وبهل آد وين حبت كاس هوري وكعد يهي دوشنا وكمدو يهي وون استاغو كسعدا خوغا عقدا دير بو ليهي افكي ديرايو شمبرها وليهي وحونا كنو ليهي دولالك برفكا wuxuu ku nool yahay dhulalka barafka ah waa fahamtaan malanay anu marka hada af Soomaali u bixinayo waxaan dhihi lahaa shambir barafeed yadu iska yar yihiin galeyrado kale iyo cumaadigo kale iyo waa yar yihiinba shambiraha ku noolaan kara markaas barafka baalka marka waxa la yiraahdaa anu dhihi lahaa shambir barafeed badriiq baa anu iska yar marka badriiq baa la yiraahdaa waa bahal noocaas ah baalal yar la af guduudan oo yar oranjana waa leeyahay هذا باذنجان كنوا باذنجان هذا باذنجان كنوا باذنجان ونوع قدارته كميده او لا cuno ama marka waa la karsan karaa ama marka waxa la sameeynaya ceerinkiisa ayaa sida bahalka liirada qajaarkiyo kale aan salaatadiyo kale yaanya zabalzaanto kale baa lagu habeeyaa baadinjaan baa liirada hadda Soomaaliya waa laga helaa waayidii laga ma heli jirin hadda suuqa hadda tagto tiraad baadinjaan isi waa lagu siinaya marka magac kale oo hadda anigu aan ku ogaho ku aqaano ma jiro magac kale oo caan ku yahay oo Soomaaliya garan mayo ana ka ahayn baadinjaan ina iraado way suuradiisa iyo sawirkiisa aqaana muhiimadeennuna waxay tahay in aan helno eray kasta oo Carabiya aanu baranno deedna aan ogaano waxa laga wado maxaan ka wadaa ma qasab ba shay kasta inaad afkaaga hooyo ku ogaatid maya afkaaga hooyo inaad ku ogaato qasab maaha laakiin waxa qasaba markaad luqadaha qalaad ee aad baranayso kamida waxa laga rabaa shay kasta oo aad aragto waa inaad ogaataa luqada waxa lagu yiraahdo waa muhiimadaad u socoto waxay tahay adigu inaad fahamto dadka kala afkooda maaha kaagi inaad ku fahamto haddii aan bir aadan aqoon ama wax aadan aqoon lagu tusiyo bahashan u jeedaha heblaaya la yiraahdaa lagu dhaho ka bacdi waxa leedahay maxay qabataa waxaasay qabataa ma salaam ereyga waa haysataa bari waxa leedahay waxaas keen oo waxaas muxuu yahay cidna kuma dhahays waa la yaqaan muhiimadu marka waa inta baadinjaan afka carabiga ayaga carabta yaqaan oo marka dhul carabeed tagtid aactini baadinjaan marka tiraadid waa lagu soo qabanaya laakiin hadaad aqoon baadinjaan ka war oo aan uga tagno maadaama af Soomaali aan ku dhihi aqoon waa ka tageena khata ma banaana hagaag هذا بائع كني وإيبية هذا بائع كني إيبية يويها وننك وحقضاء أو محوية ننك الدكان لها وإيبية بائع ننك السوق نحتاجن بكارة نحتاجن ما يشرب مركز هجوا مهردها قفرناته وحقضية وبائع
waa nin wax iibinaya waxbuu iibinaya agtiisa yaal wixii agtiisa markaa yaal wixii raba ha noqda duunyo iyo wuxuu lacag wuxuu doona ha aado ninkii wax gada oo wax iska sii gada waa baa'ic afka carabiga ninka wax iska sii gadaya baa'ic baa liraa hadaad gaari iska gadayso baa'ic baa tahay haddii dukaan uu ku furan yahay baa'ic baa tahay iibiya liraa marka hagaag darsiga intaas buu ku ogyahay ardayay marka casharkan sidaad wada ogtihiin YouTube-ka la soo dhigaya marka waxaad ku dadaashaan casharkii in aad like saartaan page muxuu ahaa YouTube-kiina aad subscribe tiraahdaan tacliiq iyo commentina aad ka bixisaan inta maxay taraysaa inta waxay taraysaa kanaalkiina kor bay u qaadaysaa oo waxa ay gaarsiinaysaa dad badan maxaan ka wadaa kullama uu tacliiq badan uu helo ama la yiraahdo comments badan uu helo muuqaalkii like badanna uu helo dad badan oo kala muslimiin u gaaraya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri adaalu ala alkhayr ka faa'ilihi ninka khayrka dadka tusiya wuxuu la miyay sidii inuu sameeyo oo kale ama kii sameeyo la mid yahay hadduu isagu xataa markaa sameyn marka maxaan ka wadaa wax kala hadaad qaban karin hadaadan faafin karin muuqaalkii hadaadan faafin karin oo kanaalkii aadan faafin karin oo ardada dhig kar war ku soo biira xaqan aad dhig karin waxa haboon wax fudud adigana waxba ka qaadanay oo maxay tahay inaad like saartid commentina aad ka bixisid subscribe-na aad kanaalkii soo dhaxtay waa inta un kaliya إلهي هذين بركة دمانتين عشرة هلا حفديو هلا سكت دياريو ومعهد العتيق لتعليم اللغة العربية 10 كان عن دوبني لينكي أو درسي أتكلم دقيقة أو PDF كيسة واحد كهلي دونتا إن شاء الله كومنتيجا أهرية آيات كلا دقيقة أما هدي كلا تليجرام كان أيو دحيا لا تليجرام كان أيو 10 كيبة دحيا لا أسقو PDF أو ورقة مركب محل جاربة ورقة إنا دكسته أو سيف جريسته صوت ضابعته هدا صوت ضابع عن كرته هدا صوت ضابع عن كرين إن عاد بوجاجا كجوريسو إن عاد بوجاجا كجوريسو إن شاء الله إلى هذه بركايو هذه عاد بعد مهم سنتين ومعهد العتيق لتعليم اللغة العربية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.